inta aadan gadan kombiyuutar cusub waxaa muhiim ah inaad ku ogaato afar waxyaalood. Waan ogahay dad badan ayaa ku dhiban marka ay rabaan inay kombiyuutar gataan waxay ka eegi lahaayeen. Number 1 waxaad ka eegi doontaa processorka, CPU-ga ama maskaxda kombiyuutarka. Badanaa waxay ku yimaadaan Intel Core i3, Core i5, Core i7 ilaa Core i9. Marka waxaad qaadan doontaa Core i5 iyo wixii ka sarreeya. Sidoo kale waxaad eegi doontaa processorka waxa gadaal ka raaca. Mar waxaa raaca HX, mar H, mar P, mar U. Marka HX waa powerful, H sidoo kale performance-giisu waa fiican yahay, P-da iyo U-duna battery-ga ay ku fiican yihiin ilaalintooda. Marka wixii qoraal ah haddii aad wax iskaga daawanayso waxyaalahaas aad u qaadanaysaa. Sidoo kale generation computerka aad eegi doontaa, waxaad qaadan doontaa generationkii ugu dambeeyay. Lambar 2 waxaad eegi doontaa maskaxda gaaban ee kombiyuutarka oo loo yaqaan RAM-ka. Wuxuu ku yimaadaa badanaa 8GB, 16, 32GB. Marka ugu yaraan waxaad qaadan doontaa 8GB haddii aad rabto shaqooyinkaaga yaryarka inaad ku qabsato. Laakiin haddaad rabto shaqo adag inaad ku qabato 16 iyo wixii ka sarreeya aad qaadan doontaa. Kan saddexaad waxa weeye storage-ka ama kaydka kombiyuutarkaaga. Laba qaab ayuu ku yimaadaa SSD iyo HDD. Badanaa waxaad qaadataa SSD-ga waayo isaga si xawaare leh ku soo kacaya. Ugu yaraanna waxaad qaadataa 512GB iyo wixii ka badan, tusaale 1TB iyo waxyaalahaas. Kan afraadna waxa weeye waa graphic card-ka. Graphic card-ku waa waxa kuu sahlaya inaad muuqaal aad aragto, kombiyuutarkaaga ka dhex aragto, rendering aad samayso, game aad ku ciyaarto, waxyaalahaas oo dhan 3D aad ku samayso. Marka laba qaab buu ku yimaadaa. Integrated mid ku dhex samaysan CPU-gaaga, taas wax xooga ma laha, just wuxuu kuu sahlayaa shaqooyinkaaga asaasiga. Laakiin dedicated-ku shaqo adag ayuu ku qabanayaa. Waa kan xooga badan oo wuxuu kuu sameynayaa waxyaalo dheeri ah. Inaad game ku ciyaarto, 3D aad ku samayso, video editing aad ku samayso. Marka waxaa ka mid ah Nvidia GeForce RTX, kuwaas ayaa ka mid ah. Hadda kadib markaad rabto inaad kombiyuutar gadato waa inaad afarta waxyaalood ku eegtaa. Commentiga nagu reeb markii kugu horreysay aad kombiyuutar gadato iyo waxyaalaha aad ka eegtay. Guuleysta dhammaantiin.